arrintan horta lala qortaayo oo Itoobiyaanka loo muujinayo dad walaalo oo inta is afgarad khalad ka dhacay hadda heshiiyey ana waxay la tahay inay degdeg tahay khatarna ku tahay Soomaaliya mustaqbalkeeda sidoo waxay u baahan tahay in dad language-ka yaqaana legally sound waxyaabahan ay tala ka bixiyaan xiluna runtii arrimahan waxaa muhiim ah in dadka soo dhex jiro laga fakaro la iska warsado loo dheeyahay lagu wajiho arrinta khatar bay leedahay waxayna kaligiis iyo dadka hadda aan aragnay ee ku hareeraysan madaxweynaha oo isleenahay hadda tala badan kuma laha yani habka baxashan ay uga qayb qaadanayaan khatar kaleetay u sidaadin kartaa in arrinta laga joojiyo madaxweynaha maxaa isleedahay khatar way keeni kartaa waxay keeni kartaa khatar واحد بريت هديك كوميرشال اساسي نفرستي كان which is هذا الخلوب بدنا كوميرشال اساسي كوميرشال هدي لسيني حد بربرئي بوصاصي حمر كساي وجهه وباهنا زيله اي يمل ان اي هاد كوميرشال ايغا لسي موقت ترد بربروينه تسي كسو دكس كلام waxay rabaan laakiin hadii la siiyo hada meel cusub oo iyaga iyo budget iyo ama kaalmo ay kala yimaadeen dal kale ay ku dhistaan dekadaas maxaa diidaya dekadaas inay u isticmaalaan arrimo military yaase ka joojin kara berito awoodda lagu joojinayo yaa iskale laakiin waxaa la leeyahay waxaa jira xeerar caalamiya oo u ogolaanaya wadamada aan badaha lahayn inay isticmaalaan badaha wadamada deriska laha وصح الدكانية بتجيب استعمال كلام لكن إلا الدك ولما مقال أنا يقولون لي هي بعض ما هيستو دك أيضا لي هي السنة ساعة بس إن أنا والشرع إنه عسل ما مقال هذا الدولة يدرس ما يستنا ما مقال وكا حدي أقولات إن الدكانية شان كده بقول إياها وتاس هذا البمرة لكن هدي لو أقول إن الدكانية شان حدي ذا الدكانية استعمل لتدو استعمالات maxaa Soomaali awood maanta aan naxano waan karnaa marka su'aashaas taagan aniga khatarteeda u arkaa in ayaga si hadii wax la siinayo access la siinayo dekadaha hadda jira access kooda la siiyo yaanan aniga ma qabo in dekad ay isteen ay marna noqonayso commercial ku ekaanayso marna ma qabo marka arrinta khatar waxaan u leeyahay madaxweynaha bahashan inuusan asaga kaligiis وكان واحد مستقبل كسومالي دول حروت المستقبل قدي وي أن كهذا أنه ما عرفتي استثنوا خطرها كمان قرودن يصير أقول لك أنه جي كذا أيضا يقول لك كلام ما له حق السوداء إن دنعك لدولة وحي هذا حرير ليالتي إن ضلك مصر إن الله في العي إنه كم النقطة والضمضة إذا ماذا نبض إلى علنتا إن AUS كبيرتون maxaa isleedahay saameyn way ku yeelan kartaa xiriirka hadda madaxweynaha uu la sameynayo iyo xiriirka hadda Itoobiya iyo Soomaaliya oo uu hadda mudmadow ka soo baxay Soomaaliya ma awooda inay isku hayso Itoobiya iyo Masar ma awooda laakiin meesha waxa jira waxa weeye sideedaba waxay tiraahdaa inuu freelance wax qado daclaan qosiinaya meeshan ma jiraan Masar ayadoo ruuxda danaheeda leedahay waxaan u soo gelaysana waa dana ayada leedahay haddii danaheedaas ay hesho sii joogaysaa oo garab ma kuusa noqonaysaa oo waxa meesha taagan marka in waxaan qabaa laskuma labadan dal hadda uun kulleyba ayaga khilaafaad ka dhexeeya waa naayilka arrimahooda arrinta badda cas waxaa ka muhiimsanba waa naayilka iyo waxa isku hayaan marka in waxaan qabaa hadda dadkii waxa la dhaxeeyay shalay asaga maraakiibkiina badda maaragtay ilaalinaya hal la siiyo kheyraadka baddeena 40% inay qaataan wixii la sugay iyo wixii la filayay oo ma dhicin dadkii wuxuu gartay inuusan labada dalba lagu garan karin oo isku keenay declaration waxa la soo saaray dadku hadda aysan wali faham waxa aysan ka haysan marka waxa taagan waxa adigu dal shisheeye iskuma haleyn kartid dhulkaada inay ku maaragtay ku badbaadiyaan baddaada dhulkaada marka waxaan qabaa kulley waa muhiim dowladahan يعني بريت أصلاً كعم وكيل كتير حد يشيل حدث يقتد لكن أنت وأنا وحنا وأخاه خطرت لله إن مر بدل
aan u barno halka tagno khatar weyn baa noogu soo wajihi karta arrintaas. dad badani xukuumaddii aad ra-iisul wasaaraha ku ahayd iyo weliba ololahaagii doorashada wuxuu ahaa xasilooni siyaasadeed. hadda sidee u aragtaa xaaladda waddanka ka taagan gaar ahaan dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada? waxaa shalay aan ka digaya arrintaasay ahayd falastiin inay siyaasadda anaga haddii aynan siyaasadda aanan lagu heshiin oo siyaasaddan aan la xasilin sideedaba security-ga dhaqaalaha wax kale oo wax laga qaban karaa ma jiro. waa ujeedaa maanta xataa unity-ga dadka midnimadii soomaaliyeed ayaa dhaawac gaaray. waa ujeedaa dowlad goboleedyadii iyo dowladdii dhexe xataa dowladihii shisheeye ayaa loo kala maaragtay yani loo kala horumaraya. intaas soomaaliya waxay ku noqonaysaa dhaawac haddaana siyaasadda la xasilin oo siyaasaddan laiska fahmin oo dowlad goboleedyadan fiili markii dowlad goboleed intuu dal kale tago uu yidhahdo dowladda dhexan kasoo jeedaa ama dowladda dhexe ee dalalka dariska intay tagtay tirahdo dowlad goboleedkan xaliilo qabto labadaba dhaawac ku yahay. sababtoo ah markaad dad shisheeye u sheegatid dhaawacaada meesha aad ka jilicsan tahay meeshaas kaa isticmaalaya. marka waa sababtaasaa keentay in ayagiina ay isfahmi laayihiin maanta isku imaan laayihiin ay u kala horumarayaan dowladihii kaleeto oo shisheeye. waa arrinta keentay runtii siyaasadda soomaaliyeed inay meel xun ka dagato. an waxaan qabaa runtii in haddii hadda tiimka jooga leadershipka isan maanta isku imaan karin soomaali inay ka fadhiisato qoli doorashooyin amaanaya in dadkan la bedelo dad soomaali isku keeni kara midnimada soomaaliyeedna soo celin kara. haddaana midnimo la helinna banaanka waxa jiraa